magacayga nin sheego magacayga Yusuf farxiyo ka weyn markii ugu horeysay garasay xagga jubbaland taanay inuu xaggan qof kasta markuu afaafu sii dhigto markuu xagga imanayo waxay tii Soomaaliya wada wanaagsan markii biilka la arkay si loo joojiyo xagga laga jiisto adna ka laga joojinaya waxay xagga amaan ka soo dhibato ay dadka si sifaf xog muhiimada baahaysa Soomaaliya joogmaysaa xafladda waxa soconaya ma aha imka magacayga Cabdullaahi Maxamed Ismaan فهذا قرن فرحية كبيرة ووصلوا إلى مجال هرقيسة وأنا في حال عن كل هذا قرن وصلوا إلى مجال هرقيسة. السلام عليكم magacaygu waa Qays waxaan ahay qof photographer oo ka howlgala magaalada Hargeysa waxaa bariyahan baraha bulshada aad iskula dhex maraya fanaanada farxiyo kabeere oo magaalada Hargeysa timid fanaaniinta qaarna ay soo dhaweeyeen qaarna ay ka dhaceen anigu waxaan nolol lahaa shakhsiyan ahaan horta fanaanin qaran baa tahay oo yani fanaanin caalamka laga yaqaanaa tahay Hargeysana dee waa meeshii aad marka horeba odhan jirtay محمد أحمد الله أنا كشيء مركو مرين ما يريد كيسين كوكو قلب في عينها أنت تلا يقول ما تبين جاي وحاس وقارن لانو تركلو هندراوي محمد يلا كلام هذا سكان قادر يسكتك waxaan inta ku sii dar lahaa waxaan oran lahaa wasaaradda diinta awqaafta markii nibay taagantay shaqadu waa hay marasaay halkii in kala idin idmada waxa ka hadli lahayd weeyii ee ay shaqadii waday marka waxaan oran lahaa wasaaradda diinta awqaafta qoftan laga qabto dhaqanxumada ay la timi wadanka hadhow tireerka siiyay caban markii hablowga dhinacyada xirtaan inay la dhaqmo bal dhawtan wasaaradda xisabta siinaan hoteelada lagu caawin karin aroosyada iyo maxaa ku dhameeyay meherka waxaan ahay marka waxaan lahaa gabadha nin iyo naag wax tawartan garan waayay gabadhu shay kale marka nin oo naagan waxaan lahaa laga qabto dadka dhaqamada ku faafinayo aan leeyahay bulshada reer Soomaaliland inanteena leeyahay farxiyo kabayare inantii shalay toole ka soo caaysay markii Yurub joogtay soo caaysay Soomaaliland ee lahayd aniga marnaba idima soo socdo marnaba ma kan wax Soomaaliland leeyahay ma garanaysaa ananu aqoonsanayna ma jirto lahayd aad iyo aad baan ugu xumeyn maanta magaalada Hargeysa lagu soo dhaweeyo wasaaradda diinta waqaftana nasteexa in dhow timaheeda qabta inta la celiyay sidee naagta dhukuranay gabigeeduba waxaan ku nin iyo naag wax allaale waxay tahay aan la garanayn maanta magaalada Hargeysa lagu soo dhaweeyay ay magaranaysa fanaaniinta waliba aanay isku wada raacsiisanayn ee qayb ka mid ah fanaaniinta jamhuuriyadda barakeysan ee Soomaaliland ay ku soo dhaweeyaan magaalada Hargeysa oo in yaroo caadaystayaal oo caada qaatayaal ay ugu soo dhaweeyaan naagta shal xaqiraysay jiritaanka iyo midnimada ummadda reer Soomaaliland waa ma naagta dhukuran ma inantii nasteexa indho oo timaheeda qabta ma meesha laga eriyay iyo leedii naag dhukuran oo nin iyo naag wax xalaale waxay tahay la kala saari leeyay haka jaasto maanta magaalada Hargeysa ka magaranaysa waliba aad lacag ugu yaraan $20 iyo $25 iyo wax ka badan ba aad ku gashaan ya miya wasiirkii diintii waqaafta ee nasteexindheeri yadba gabadh waxay Soomaaliyeed hadii Soomaali la doonayay gabadh Soomaaliyeed baa hadiyadiba nasteexindho oo ka asturan oo 100% waxaan ku hori manaagtan dhukuran ee magaal maaruma hablaha reer Hargeysa inay wada dhukurtaan baad doonaysaan